Soomaalida waxay la horumar weysay ee horumarka gaari weysay waa ninka camal noo joogan hadii maayar Soomaaliya la keeno kulligan macala ku sharci la la xaawin hal mar ma qaadan karno si marka Donald Trump iyo wixii uu wato dhan wala celiyo marka wiil afahmaya noo joogay asaga aan soo celino asagana taageerano aad iyo aad u maasantiin ninkii Cabdullaahi Diifla ahaa ee hankiisa hooseeyay ee qalbiga ka madoowa ee qabyaalada ay dilootay bal waa kana wuxuu sheegay dhageysta asagana waxaan la hadlayaa dadka ku nool Minneapolis ma aqaan waxay ahayd meesha doorashadu ka socoto ninka yahuudka u codeey hawiyo dacbur fariin ninka liiraada ee yahuudka Umar wuxuu soo qaatay astaantii macawiistii calankii iyo wax kasta oo xawaalo lagu garnaayo soo qaatay xiniyaha xawaala saarnaa u sanadkan hadaan codkina helo we're going to win hadaan codka giraaska helo we're going to win hadaan codka macawiisla helo waan guulaysanaa insha Allah waxay sugayeena helay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق سود وهذا وحن أهي مستر كلمتاني أفرتي سديدي ساعة لصوت في وها براها بالشدة قبصدي دورشة كسعة مينيابوليس أما دورشة مريكان كدعيسو Soomaalida waxay la horumar weysay ee horumarka gaari weysay waa ninka camal dad baana leh wiil Soomaaliya tartamaya maxaa codka lagu siin waay war haddaan Soomaaliya dhan isku tagno ma soo saari karnaa wiilka ma soo saari karnaa codkeena dhan Minneapolis waa 8,000 ilaa 10,000 حتى هل ست كونسل ما صار كرنو مرك واي أن رسيستنيمو إيو متقانا كلا فوق وسميننا أنا كو هلي كرنو قفن فكر كتاغرنو wuxuu bataagan yahay aan taageerno nin gaala oo cadaan ah yaanan taageerin nin walaalkayga oo Soomaali oo ila dhashay ka soo horjeeda codkaygana waxaan siinaa nin gaala oo cadaan oo bataagan yahay bal ilaahay ku dhaalshay ninkan sidoo u niijo bal ila firsada war haddaan Soomaaliya dhan isku tagno ma soo saari karnaa wiilka ma soo saari karnaa iska dhaadhiciyay in uu asaga waxba qabsan karin doorasho gali karin Minneapolis maayar uu ka noqon karin maanta 2025 iyadoo la maray wuxuu iga dhaadhicinaa in qof walaalkayga oo Soomaali ugu dhiiga qabiilku doono ha ahaado inaan ka tago qof gaal oo cadaan ah oo bari waxa way faquuq iyo waxa way musmaasuq uu sameeyay inaan doorto bal ninkan Soomaaliga ilaahan ku dhaashay bari markii uu soo baxo Umar Faatax muxuu sameyn doonaa ninkan marnaba isma lahayn 2025 iyadoo la marayo qof muslim oo Soomaaliya laga codeyn doona cadaan iyo waxa waa qof aan muslim ahayn loo sii codeyn doono marnaba isma lahayn laakiin bedelkeed taas guushu waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay gacantiisa ku jirtay Umar Faatax wuxuu taagan yahay hadda 6,000 oo cod oo Soomaali ah helnay bedelka ninka hadda ila tartamay uusan 200 helin waa ka soo afkiisa ku sheegayo hadda daatna waa haysana 6,000 oo qof oo Soomaali ayaa codeeyay لكن والله جايكوب فرايد لو بقول مهلا ناري من 200 والله تاسو رضا wuxuu yiri 6,000 oo cod oo Soomaali ah haynaa ninka ila tartamayaan 200 cod ma gaarin guul heer sare ayuu taagan yahay ma sha Allah Umar Faatax insha Allah wuu soo bixi qof Soomaali qof gaal ah la isma barbar dhigi karo wuxuu raba sheegay ninkaas Soomaali meel kasta ay joogto ninkaas ha taageerto qof kasta sawirkiisa soo qaato qof kasta video sameyn karo video ka sameeyo qof kasta Umar wax u tari karo wax u taro maanta ayaa la isku baahan yahay Umar wuxuu yiri hadaan helno codka macawiislay gaanga waa guulaysanayna waa kan mar kale codka macawiisla helo waan guulaysanayna insha Allah waxay sugayeena helay Umar wuxuu soo qaatay astaantii macawiistii calankii iyo wax kasta oo xawaalo lagu garnaayo soo qaatay xiniyaha xawaala saarnaa u sanadkan hadaan codkina helo we're going to win hadaan codka giraaska helo we're going to win hadaan codka macawiisla helo waan guulaysanaa insha Allah ninkii Cabdullaahi Diifla ahaa ee hankiisa hooseeyay ee qalbiga ka madoowa ee qabyaalada ay dilootay bal waa kana wuxuu sheegay dhageysta asagana yahuud la doorto taan yahuud oo waxa way Falastiin say u gashay loo gaay oo wuxuu leeyahay qof Soomaali walaalkaana qabyaalad daraadeed heerkay ka gaartay hal doorto taan waa kan mar kale waxaan la hadlayaa dadka ku nool Minneapolis ma aqaan waxay ahayd meesha doorashadu ka socoto ninka yahuudka u codeey hawiyo
dacbur fari ninka la yiraahdo ee yuhuudka cabdulaahi diiflow ama ku farax ama ka naxday ku taala cumar wuu soo bixi doonaa guushana isay raaci doontaa markaad waxa ku hadli lahayd iyo waxaad sheegi lahayd waxa waa laga rabaa in walaalkaaga Soomaaliya qabiilku doon ha ahaado dir idaarood wuxuu rabo ha ahaadee inaad dhahdid yuhuudda ka doorta ninka gaalka cadaanka doorta hawiyihii qabiilkay fahmeen ma ilaahay ku dhaashay hankaaga malkaas uu geey adigoo Soomaali qabyaalad daradeed ugu tagay oo wadamadaas joogo oo cunsuriyad maanta si sameynaysa tan waa ku fashilantay raaligelinka bix ninka intuu saacadka ku guuleysan haddii kale wallahi dhiiqa lugaa ula jirtaaniyo cumar waxaan leenahay guuleyso jir oo joog insha Allah codkaasna adaa heli doona haddii aad guuleysatana hambalyada waa soo diri doonaa video dambena waa soo duubi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waatan adduunyo halkaan ay maraysaa ilka shaqays dhig shanta Soomaaliyeed magacooda hadda ka bacdo ku qaramaya lagu arkay tuug dhalay aan ilaahay aqoonin rasuulkiisa aqoonin baa taawlaa nin walaalkaaga oo daarad Ismaaciil isku tiin oo Soomaaliya isku tiin oo dhiig iyo sinjiyad walaalnimo aad sheeganaysan aad ka codeynaysaa walaha gaalka munaafiq ee saddex jeer ku soo noqday ee Soomaaliya wax buu qaban aad dooranaysaa tuug dhalaatay adigoo hadda ka bacdo Soomaaliya ku hadlaya lagu arkin nin dadkiisa iska xoray walaalkiisa diiday dhibaato bulshada u horseeda taawlaa tuuga dhigshanta Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa haddii uu soo baxo wiilka daarood soo baxo wiilka daarood hadduu soo baxo hawiye waa laga adkaada futadiisa hoos loo dhigay ahay maanta dan kan in loo fadhiisto xitaa uma qalmo anoo jiifo u jawaaba ninkan tuuga oo qabyaaladista bal ninkan ilaahay in ku dhaarshay u jeedaan Soomaaliya markuu ka baxay Yurubta uu galay wuxuu ku galay qabiilaasan soo yeelay waa la soo gumeystay waxootiyan ahay balaa asiga qabyaalad Soomaaliya gudaheeda intuu u dhuuntay uu Yurub ku galay haddana waxa soo Yurub joogo oo si afuufay qabiil iyo qurun iyo Soomaali inta joogto oo hawiyi daarooda kala dhaho uu isku duray oo dabo sii shiday ka war ilaahay ku dhaarshay inna lillahi bal ninka inta la eg ee Yurub waxa qabiil daraadiis ku galay oo cabsi waxa ama lagu diraa daraadda Soomaaliya uga cararay oo asoo meesha joogo waxa qabiil soo afuufay war Soomaaliya ninkan iyo idin saameyn war ninkan waa qabyaalista weyn waa tuug weyn oo dullooway maalin kasta baraha bulshada dadka wuxuu ka mid yahay qabiilka ummadda isku diro war ninkan ka digtoonaada ninka Soomaaliga ee walaalkeena ee waxa faatahay dhahan oo guuleysan doona insha Allah natiijada bariya soo dhamaan doonta guuleysta Soomaali Maxamed meesha meel kasta ay joogtaan wallahi dadka magaceedoodan sheegin ani waa ogahay bajaajleydana muuqaalkayga la gaarsiyo dadka bajaajleyda muuqaalkayga la gaarsiyo walaalow hadda kadib kuwa TikTok isticmaalay caanka isku haysta ma aragtaa kuwa caanka isku haysta haddaad aragtaan ay hidistaajiyaan walaalow afka ilaahay kuma goynine la heshiyo xagee u socotaa banaadir aan u socdaa banaadir intaasaan ku tagayaa miisiinaysaa dheh heshiiya laakiin bajaaj warniyo saaxiibyada arrintan waa jirtaa been ma ahan bajaajleyda dhibaato badan ay kala kulmaan dadka caanka ah war ani hadda ka hore igu dhacday waa soo qaaday xayaado galay waxaan soo qabsanaa oo dhahay الآن هو إجماع قيناه ما يوصل نغمبه العكس إنه وحاول حكسوق هذا مدينة كسوق هذا أي 6 دورة كل شيء لو دوري برا كسيا وداي أيها ناي حياة الجي والحاسوق بسنا وداي والحاسوق بسنا وليوكم قيناه الآن وسوي العكس أديك واحد لجوا ويان لحب الواجوا عملها حياة سوق جلسة أسوق مركز دالي أو حاسر ما أنت حريف مجالها كوكلين كدع دنا يصير هالسوق لو دوري بركي كل شيء إن كبرن waqti uu iga dhameeyay marka dhibaatadaas waa jirtaa goodgiisi waad ku maasantahay sida aad bajaajleyda u matashay ama doodooda u gashay ama uga hashay ninkaas hadii loo baahdo magaciisa inaan soo sheego waan soo sheegaa ballan waa hadii goodka uu dhaho qaybta hoose commentiga ku soo qor magaciisa sheeg wallahi billahi waa sheegaa